Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay laanta bixinta adeegga baasaboorada oo laga hirgeliyay degmada Boondere, taas oo wax weyn ka tari doonta bixinta adeegga ay Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya siiso dadweynaha Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay Agaasimaha Guud ee Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Mudane Axmed Siciid Maxamed iyo howlwadeennada hay'adda in ay si hufan ugu adeegaan bulshada, isagoo ugu mahadceliyay dadaalada ballaarinta hay'adda ee socdo. Wuxuuna sheegay xukuumadda dan qaran ay ka go'an tahay in shacabka loo dhoweeyo adeegyada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin. Marka koowaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan reer Boondere inaan idhaahdo hambalyo. Marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gobolka duqa magaalada oo nasiib u yeeshay termigiisii horena inuu bixiyo xarunta ay hadda ku shaqeyso ee guud hay'adani oo shacabka Soomaaliyeed u shaqeysa ahna hay'adaha taqriiban ugu shaqada badan ama ugu baaxadda badan baahida marka laga fiiriyo ay u joogteeyaan ama ay ka haqabtiraan adeega ay ka haqabtiraan shacabka Soomaaliyeed oo cid waliba u baahan tahay yar iyo weyn, rag iyo dumar, qof walba oo Soomaali ah waxa weeye waddanka ka baxayay ama dhakhtar aadaya ama safar kale aadaya ama caafimaad aadaya waxa uu sii maraa hay'addan. Marka hay'addani waxay u gudaa marka ay u samaysaa adeeg bay u samaysaa cid kasta oo waddankan imaanaysa oo soo gelaysa ama Soomaali ha noqdo ama Soomaali uusan noqonayn ajnabi ha noqdee haddana meesha uu ka soo galo weeye waddankan. Marka waa hay'ad muhiimadaas leh. Marka gudoomiyaha inuu markii horena uu xarunta weyn ee hadda ku shaqeysa siiyey, markii hore uu termigii hore uu joogay xafiiska, maanta haddii alla soo celiyeyna uu nasiib u yeeshay haddana inuu xafiiskan kale oo muhiimka ah oo quruxda badan inuu ku wareejiyo hay'adda, waan ugu hambalyeynayaa, waan uga mahadcelinayaa. Gudoomiye waa mahadsan tahay. Waxaan u mahadcelinayaa runtii shaqaalaha iyo madaxda hay'adda oo ayaguna mar walba hay'adda kor u wada develop gareeya hay'addaas quruxda badan ee xarunta weyn dhisay, haddana tan dhisi doona haddii la yidhaahdo oo dhismo qurux badan ka samayn doona. Waxaan u mahadcelinayaa dowladaha naga taageera ee Sweden iyo Norway iyo UK oo runtii taasna naga taageeray, tan hadda imika naga taageeri doona, ayagana waan u mahadcelinayaa. Tani waxay ka mid tahay adeegyada muhiimka ah ee shacabkeena loo soo dhaweynayo ee guryahooda loogu geynayo ayay ka mid tahay, ee ay waxbarashada ku jirto, ee caafimaad ku jirto, tanna ay ka mid tahay adeegii kale ee immigrationka oo ay dadkeenu u baahnaayeen. Waxaan rajaynayaa inay dhammaato in saf loo galo, baasaboor la qaato, ID la qaato, iyo adeeg kasta oo dalka laga qabanayo inuu digital noqdo oo sida EVC Plus-ka aad u tuurtaan inaad haddii ilaahay baasaboor markaad rabtana inaad adoo gurigaaga jooga wixii lagaa rabay inta lacagta tuurato in gurigaaga aad ku qabsato wax walbaba oo saf gelin ayaa insha Allah soo socota oo rajaynaya. Laakiin inta ka horeysa in la soo dhaweeyo meeshii aad ka aadi lahaydeen gediga kale magaalada in halkan la idinku keeno waxa waaye waa guul, waa adeegyo la soo dhaweeyay oo dadka loo soo dhaweeyay. Intii ka shaqeysay waan uga mahadcelinayaa. Raaxo Daar Suldaan, Hirshabelle TV, Jowhar.